xamdan naasir waa gabadh yar oo 11 sano la dhiban xanuunkaasi bay dhanka maskaxda qoyska ay ka soo jeeda waa qoys dan yar ah oo aan helin xataa nolol maalmeedkooda xaaladda xamdan naasir ma aha mid wadanka gudihiisa wax laga qaban karo taas beddelkeeda xanuunka xamdu waa mid wax laga qaban karo wadanka dibadiisa laakiin nasiib darro ma haysato lacag ay ku tagto dhakhtar dibadda ah iyadoo afartan ku jirta la helay hadii la helay dhakhtarkeedna dhaqaatiir dibadda ka timid baan u geeyay waa la qalay imaka oo koobito waxay ku jirtaa koobito jir weeyaan madaxa laga qalay in badan bay tuumbada ku jirtay hadii ku jirtayna dal mooyaan dal laga qaban meel dibad mooyaan ana wax dhaqaalada ku filan aan ku geeyaa ma haysto ummadda muslimiinta waxaan ka bareeyaa inay igu soo caawiyaan Soomaalida ayaan ka bareynay igu soo caawiyaan intaas oo sanadoodna waan hayay toban sano waxaan barsanay siiyay dawladda iska dhibaataysan iska nimcada badan leh dayarna waan hayaa magaalada dibadeedna ku jira qarashna uma hayo anigu dayar baan tuuyo ma hayo ummadda muslimka iyo dawladda dadka oo haysta ayaan la garab taagan la barayay inanteeda yar inay igu soo caawiyaan waxa loo wax dhaqaalaano hayaan anigu ma jirto meel lacagta la igu xiray waa $30 mana hayo jeebkayga kuma jirto Allah waxaan ma jirto Ilaahay iyo ummadda dadweynaha Soomaalida ayaan la bariyay dawladda iyo dadka shacabka ayaan Axmed Guuleed oo si dhow la socota xaaladda qoyskan danyarta ay xaaladda caafimaad ay ku gadaaman tahay ayaa bulshada ugu baaqday in ay soo caawiso maadaama ay sheegtay in xad $30,000 si ay xaaladdeeda caafimaad u hesho lagu xukumay halkan waxa la fadhiday Xamdan Naasir Maxamed waynan taayir dhibaataysan xaaladdeedu ogahay muddo badan ba madaxa tuumba kaga jirta waxa la qalay iyadoo 40 ku jirta kabacdi tuumbo waxa raacsan jirkeeda caloosha biyaha iyo cuntada basiya kabacdi xamda aad bay xanuunsan saad buu dhibaataysantay waa 12 jir fahmi dan yar ka dhalatay hooyad ma shaqayso aabeed ma shaqeeyo 6 caruur la dhalatay maxaa heeday lacag waxa lagu xukumay ilaa $30,000 ayaa lagu xukumay dibad mooyaane dal waxa laga qaban karo waxaan leenahay dadweynaha dawlad shacab Soomaaliyeed maxamedan inaan taar soo caawiyaan dar alle lacagta waxa lagu xukumay $30,000 dal mooyaan dibad waxa laga qaban karo tuumbada bir hore la geliyado wax yara waqtigeed way dhaaftay waqtigeed in badan bay dhaaftay iyadoo wax yara la doonay laga saaro marka waxa lagu dibadda laga soo saaraya dhaqaale u weeday lacagta badan marka lagu xukumay dawis ka joogtay oo $30,000 baa lagu xukumay dimina awoodo faamigeeda ma awoodaan wadaadna ma awoodaan kabacdi maxaa heeday xanuunka badan way ku haysaa hada qoortaas way qalloocdaa oo korkuma eeg karto hadii istiraado soo way dhacaysaa oo waxa ma soo qabsan karto hadii wax dhulka kaga dhacaan ma foorarsan karto oo ma soo qabsan karto waynan taari aad u dhibaataysan aad u xanuunsanaysa walaalaha muslimiinta waxa ka codsanaa in taari soo caawiyaan dar alle qof kasta wuxuu heli karo in akoonkaas ugu soo shubo walaal alla dartii u caawi walaashan Xamdan Naasir oo muddo 11 sano la jiifta xanuunkaasi dhanka maskaxda haddaba walaal alla caafimaad muu waayid balse inaga ayuu ugu eegaya walaal gargaar waa bir Ramadaan walaal si alla miisaanka xasanaadka uu kugu daro alla dartii uga qayb qaado walaashan Xamda siday u heli lahayd caafimaad dalka dibadiisa loogu qaado haddaba si aad u caawiso walaashan Xamda lambarada shaashada ku qoran kala xidhiidh عبد الرحمن أرتوغان
dalka TV hargeysa.